بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta oo maalin sabti ah taariikhdana tahay 22 bisha Oktoobar ee sanadka 2016 ee miilaadiga kuna beegan 21 bisha Muharram ee sanadka 1438 ee hijriyada. waxaad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee barnaamijkii la magac baxay raadraaca boqortooyadii baaxadda weyneed ee Ajuuraan oo hadda la yiraahdo boqortooyada soo jireenka Soomaaliya kaasoo aad ka daawanaysaan telefishinka BSS TV oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya kaasoo hawada si toos aan u galin. qarnigii 14aad ee miilaadiga wadanka Soomaaliya ayaa ka mid ahaa wadamadii ugu awoodda iyo dhaqaalaha badnaa adduunka ayadoona ay waqtiga ka talinaysay boqortooyadii baaxadda weyneed ee Ajuuraan. hase yeeshee dabayaaqadii qarnigii 14aad sanadka markuu ahaa 1498 miilaadiga dowladii Boortaqiiska ayaa bilowday daandaansi ku aadan in ay wadanka Soomaaliya hoosgeyso xukunkeedii ayagoona iska indhatiray boqortooyadii Ajuuraan oo bariga koonfurta ilaa galbeedka qaaradda Afrika xukumi jirtay. sanadka markuu ahaa 1499 miilaadiga waxaa magaalada Muqdisho sahan ku yimid dhulmareenkii Boortaqiiska ahaa ee Vasco da Gama asagoo hogaaminayay koox xaryan ah waxa uuna isku dayay in magaalada Muqdisho uu hoosgeeyo xukunkii dowladii Boortaqiiska. hase yeeshee waxa uu diidmo adag kala kulmay boqortooyadii Ajuuraan kadib markii ay ka hortimid boqortooyadii Ajuuraan rabitaankii Boortaqiiska ay doonayeen in ay maamulkii Muqdisho hoosgeeyaan xukunkii Boortaqiiska. Vasco da Gama ayaa duqeeyay magaalada Muqdisho. بلادي بلاد الإباء والشمم ومغنى المروءة منذ القدم يعانق فيها السماح الهمم وفيها تصون العهود الذمم ستبقى بلادي منار الأمم لتمنع عنها دياج الظلم. sanadihii 1498 ilaa 1502 miilaadiga dowladda Boortaqiiska ayaa iska caawin xoogan kala kulantay ciidankii boqortooyadii Ajuuraan oo ku sugnaa magaalooyinka Muqdisho, Marka iyo Baraawe. waxa ayna aad uga caraysnaayeen howlgalka uu Boortaqiiska la damacsanaa in maamulkoodii uu hoosgeeyo maamulkii Boortaqiiska. Boortaqiiska ayaa madaafiic ku burburiyay dhismayaashii qadiimiga ahaa, warshadihii dharka, suuqyada dahabka, alaabooyin kala duwan iyo wax kasta oo suurtagal ah. waxaana halkaasi markii ugu horeysay ku burburay xadaaradii magaalada Muqdisho oo soo jirtay boqolaal sanadood. باسم المهيمن حامي العلم وعزم السيوف وهدي القلم وعزم السيوف وهدي القلم. sanadka markuu ahaa 1503 miilaadiga Boortaqiiska ayaa duqeymo u geystay magaalada Baraawe kadib markii uu iska caabin aad u xoog badan kala kulmay boqortooyadii Ajuuraan oo ka talinaysay wadanka Soomaaliya iyo meelo badan oo ka mid ah bariga Afrika. Boortaqiiska ayaa cag dhigi waayay magaalada Baraawe asagoo isku dayay in uu xoog ku gudbo. hase yeeshee waxaa hortaagnayd awoodii boqortooyadii Ajuuraan oo u duub xiratay sidii ay uga difaaci lahayd wadanka Soomaaliya gumaystaha. ونجد عرين أسود الشرى ستبقى لمجد العلا منبرا ستبقى لمجد العلا منبرا. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى عليها ومنها السلام ابتدى وفيها تألق فجر الندى حياتي لمجد sanadkii 1505 miilaadiga waxay dowladda Boortaqiisku soo dirsatay ciidan badeed uu hogaaminayay Alfonso waxa ayna ujeedadiisu ahayd inuu weeraro una qabsado
marsooyinka bariga Afrikada bari iyo magaalooyinka xeebaha. hase yeeshee arrintaasi ayaa waxaa aad uga soo horjeestay boqortooyadii Ajuuraan oo ka talinaysay Soomaaliya isla sanadkii 1505 miilaadiga. Bedro de Anya ayaa qabsaday Sofala kadib dagaal culus oo la galay ciidankii halkaasi ku sugnaa una kala kulmay dagaal aad u xoog badan. يمينا بخالقنا الأوحد علينا ونحن رجال الغد عهود الحفاظ على السؤدد بصدق الرعاية للمهتدي وصدق الرماية للمعتدي يمينا بلاد الهدى نفتدي. sanadka markuu ahaa 1506 miilaadiga Boortaqiiska ayaa duqeeyay magaalooyinka xeebaha ku yaala ee Baraawe iyo Muqdisho. dhacdadaasi kadib Boortaqiiska ayaa isku dayay in ciidamadiisa geeyo magaalada Baraawe. halkaasi ayaa isku hor imaad aad loogu baaba'ay ku dhexmaray ciidankii Boortaqiiska iyo ciidankii boqortooyadii Ajuuraan oo gaarayay ilaa iyo 6,000 oo ciidan. waxaana halka ciidamada Boortaqiiska looga laayay 800 oo askari ayadoona tiro inta ka badan looga dhaawacay. waxaana Boortaqiiska qasab ku noqotay inuu ka helfagurto magaalada Baraawe. علاكي ببذل سخي اليدي وعمر يطول بمستشهدي وعمر يطول بمستشهدي. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى عليها ومنها السلام. Boortaqiiska ayaa waxa uu mar kale isku dayay inuu weerar ku qaado magaalada Muqdisho oo xilligaasi lagu tirinayay magaalada ugu hodansan uguna awoodda badnayd magaalooyinka xeebta Afrikada bari ku yaalay. markii uu Boortaqiiska xaryanadiisii militariga ah ay yimaadeen marsada magaalada Muqdisho waxaa markiiba xeebta isku geedaamay ciidamadii boqortooyadii Ajuuraan ee ku sugnaa magaalada Muqdisho oo badankoodu ahaa fardooley. laakiin Boortaqiisku ayaa wali rajo ka qabay qabsashada magaalada Muqdisho waxa uuna isku dayay in uu ciidankiisu ku dejiyo magaalada Muqdisho. hase yeeshee waxaa lagu dirqiyay in uu dib uga laabto aragtidiisii gumaysi. بلادي بلاد الإبا والشمم ومغنى المروءة منذ القدم. Boortaqiiska ayaa ka quursaday magaalooyinka Soomaaliyeed kadib markii uu arkay in uu guul ka gaari waayay danihiisii gumaysi ayaa uu u gudbay jasiiradda Socotra halkaasi oo uu kala kulmay ka hortag aad u xoog badan. hase yeeshee sanadkii 1507 ee miilaadiga hogaamiyihii ciidanka badda ee Boortaqiiska Alfonso ayaa qabsaday jasiiradda Socotra kadib markii ay arkeen in aysan sii haysan karin ayaa ay isaga baxeen. ka hor inta aysan ka bixin ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen falal aad u foolxun oo isugu jiray boob dhac iyo burburin ay u geysteen jasiiradaasi. sidoo kale dagaaladii joogtada ahaa ee lagu hayay ciidanka badda ee Soomaaliya ayaa wiiqday awoodii difaaca ee ciidankii Soomaaliya waxayna taasi sabab u noqotay in Alfonso uu duqeeyo dhammaan magaalooyinka Soomaaliya ee ku teedsan badweynta Hindiya iyo Badda Cas inta u dhaxaysa Baraawe ilaa iyo Zaylac. يمينا بخالقنا الأوحد علينا ونحن رجال الغد عهود الحفاظ على السؤدد بصدق الرعاية للمهتدي وصدق الرماية للمعتدي يمينا بلاد الهدى نفتدي. علاكي ببذل سخي اليد وعمر يطول بمستشهدي وعمر يطول بمستشهدي. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى. sanadkii 1516 miilaadiga Boortaqiiska ayaa waxa uu gubay magaalada Zaylac
xilligaasi oo ay ka talinaysay saldanadii adal oo hoos imaanaysay boqortooyadii baaxadda weyneed ee ajuuraan waxaana ka talinayay suldaan maxamed asiir ka oo ka heebaystay inuu dagaal la galo xabashida waxaana ugu dambeyntii dilay seedigiisii oo lagu magacaabi jiray maxamed abubakaak maxfuud waxaana halkaasi ka abuurantay fidno iyo in amiirkii xukunka qabtaba laga takhaluso isla waqtigiiba waxa ayna noqotay magaalada 2 sano gudahooda mid ay soo mareen ilaa iyo 5 amiir sidoo kale sanadkii 1517 miilaadiga لوب سواريز أيا قبي مقالة زيلع ونجد عرين أسود الشرى ستبقى لمجد العلا منبرا ستبقى لمجد العلا منبرا sanadkii 1518 miilaadiga sarkaal Boortaqiisa oo lagu magacaabo Saldanha ayaa duqeeyay magaalada Berbera isla waqtiga waxa dagaal iskala hor yimid boqortooyadii Uthmaaniyiinta iyo Boortaqiiska ستبقى بلادي منار الأمم لتمنع عنها دياج الظلم باسم المهيمن حامي العلم وعزم السيوف وهدي القلم وعزم السيوف وهدي القلم sanadka markuu ahaa 1532 miilaadiga waxa magaalada Muqdisho soo gaaray Stefano da Gama waxa uuna ahaa wiilkii labaad ee badmareenkii Vasco da Gama waxa uuna kamid ahaa saraakiishii xarunta boqortooyadii Boortaqiiska waxa uuna bishii Maarso isla sanadkaasi ka soo ambabaxay magaalada madaxda Boortaqiiska ee Lisbon asigoo la socday koox xaryan ah uuna hogaaminaya Admiral Provaz markuu tagay xeebta Milindi uuna sii socday jasiiradda Socotra ayaa xaryankiisii oo lagu magacaabi jiray Espirito Santo ay duufaan u riixday dhanka jasiiradda Carbeed Stefano xaryankii ayuu ka dagay si uu u aqoonsado dhulka uu marayay hase ahaatee walaalkii Christopher oo ahaa sarkaalkii ku xigay kadib markii ay duufaanta sii xoogeysatay ayuu xaryankii baroosinka u qabtay una shiracday dhanka xeebta Afrika markaa kadib ayuu Stefano doon uga dhoofay jasiiradda Socotra waxa uuna ku hakaday magaalada Muqdisho waxa uuna halkaasi ka iibsaday xaryan uu ku dhoofay ilaa dalka Mozambique uu ka gaaro xaryanka ayuuna la socday ugu dambeyntii waxa xusid mudan in taariikhdan laga soo aruuriyay kaydka qoyska reer boqor ee Aala Sheekh fasaxasna uu bixiyay boqorka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya boqor Mayo Xuseen Abow Aala Sheekh بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى